Guurku waa mid aad u wanaagsan una fiican rag iyo dumar qaas ahaan markuu ku yimaado xiriir jacayl oo dhex mara labada ruux. Sidoo kale waxa uu ku dhismaa isfahan labada ruux iyo kalsooni is aamin. Laakiin dooqu waa cajiib. Lamaanayaasha qaarkood kuwa oo kala duwan muuqaalkooda haddana is doortay. Waxaa la dhahaa ma ahan kuwa isku dhigma ama isku qalma. Laakiin lamaanayaasha muhiim uma ahan hadalka. Waxaa kaloo jira lamaanayaal duruufo adag soo wajahday hase ahaatee waxay ugu guuleysteen heshiis dhab ah kuna salaysan jacayl oo dhex mara labadooda. Midkood midka kale ayuu jecel yahay taasoo dhibaato waliba ay uga gudbeen. Intaanan faahfaahinta barnaamijka u gudagalin janaalka loo like subscribe-kana hanaga ilaawin dhanka Facebook-na follow noo dheh nana soo raac Somali Media Action. Miley iyo Janice labada lamaane ayaa ka soo wada jeedaan Brett. Waxaa la sheegay in aysan isku habbooneen amase aysan isku qalmin. Social media waxaa looga yaqaanaa loodii ballaarneed iyo orgigii yaraa. Xiriirkooda ayaa bilowday 2008 xilli ay isku barteen jaamacad ay wada dhiganayeen. Dhammaan ardayda Miley waa ay ka fogaanayeen sababta jacaylkeeda darteeda. Janice waa uu ka helay Miley waxa uuna u arkay qoftii uu ku riyoonayay in ay tahay. Hase ahaatee Janice ehelkiisa iyo asxaabtiisa ayaa u sheegay in uu ka fogaado qoftan sababta jacaylkeeda iyo farqiga u dhexeeya oo ah 150 kiilogaraam. Hase ahaatee labada lamaane ayaa ugu dambeyntii isguursaday haddana wada nool. Elizabeth iyo eygeeda. Tani waa gabar ka soo jeeda dalka Mareykanka waxa ayna go'aansatay in ay guursato ey taasoo noqotay sheeko fajac ku abuurta adduunka. Elisa ayaa guursatay eygeeda lagu magacaabo Max kadib markii ay ku guul daraysatay 4 guur kuwaasoo ku dhammaaday furiin. Waxayna door biday eygeeda Max in ay fursadda ragga khasaariyeen in ay u bandhigto. Xalfadda guurkooda ayaa ka dhacday maxkamadda. Elisa ayaana habeenkaa ku soo labisatay dhar aad u qurux badan halka Max loo soo xiray suud loona soo dhiibay faraantiga. Waxa uuna rabaa goobtii ragga ay ku fashilmeen in uu jagada qabto. Elisa ayaa la weydiiyay sababta ku kaliftay inay ey guursato ayadoo rag heli karto. Waxa ay ku jawaabtay ballanta iyo axdigu ragga waxaa kaga fiican eyga taasoo la yaab noqotay. Weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena Jimcaha soo gala kanaalka Somali Media Action qaybtiisa alcaalam. Nin ka soo jeeda Japan ayaa guursaday gabar kartoon ka samaysan. Waxa uu xaqiijiyay in uu guursaday gabar xilligii uu yaraa uu daawan jiray. Waana gabar shakhsi ahaan kartoon ah. Waxa uu daawan jiray xilligii uu yaraa. Waxa uu ka dalbaday mid ka mid ah shirkadaha ku takhasusay sameynta kartoonada. Waxa uuna u sheegay in ay u sameeyaan mid uu jeclaa mid la mid oo kale. Waxaa la xaqiijiyay guurkoodu in uu dhacay 2017 inkastoo xalfadda guurkoodu ay soo xaadireen 19 qof oo keliya. Wadaray ka waasacan. Monica iyo Harry. Monica waa gabar ka soo jeeda Mareykanka. Culeyskeedu waxaa lagu qiyaasaa 300 kiilogaraam. Laakiin arrinka la yaabka leh ayaa ah in ay ku faraxsan tahay culeyskeedaas. Waxa ayna jeceshahay inay halkaa ka sii saa'idiso. Laakiin Harry waxa oo dhan kama reebin inuu xodxoto Monica uuna la sameeyo xiriir jacayl. Waa ay isguursadeen waxayna isku dhaleen gabar lagu magacaabo Elisa. Kadib Monica ayaa sheegtay inay culeyskeeda hoos u dhintay sabab caafimaad darteeda. Sidoo kale waxa ay xustay gabarteeda yar darteeda inay culeyskeedu ay u dhintay qaliin ay u gashay. Julia Fernandez da Silva iyo saaxiibtiis Eden Madrias. Julia Fernandez waxa uu yahay ninka ugu dheer Brazil
waxaa kaloo uu yahay ninka saddexaad ee dunida ugu dheer. Julian Fernandes ayaa dhirirkiisa lagu qiyaasaa 2.73 sentimitir. Waxa uu la kulmay dhibaato xooggan dhirirka dartii, laakiin waxa uu guursaday gabar lagu magacaabo Eden Medeiros taasoo zaid ugu gaaban laguna qiyaasay 1.52 sentimitir. Eden Medeiros ayaa dhibaato kala kulantay magaaladii deganeed iyo iskuulkii ay wax ka baranaysay iyo meel kasta ay degto in aad loo faquuqa ninka dheer dartii. Laakiin Medeiros ayaa xusay inay Julian Fernandes da Silva agtiisa ka heshay jacayl aad u weyn. Ugu dambeyntiina waa ay isguursadeen. Filippo Aleenga waa nin naafa ah oo ka soo jeeda Faransiiska, waxa uuna ku dhashay naafanimada, laakiin intaaba kama reebin in uu raadiyo gabar uu calmado. 2016 ayay isbarteen gabar ka soo jeeda Kenya taasoo lagu magacaabo Civilian, taas oo ka shaqaynaysay hay'ad u dooda xuquuqda naafada. Filippo kuma fikirin in ay aqbali doonto dalabkiisa ah in ay isla soo casheeyaan. Habeenka laga bilaabo Civilian iyo Filippo waxaa u bilowday romansi aan inaba caadi ahayn, kaasoo ugu dambeyntii keenay in ay labadooda isguursadaan. Filippo iyo Civilian hadda waxa ay ku nool yihiin nolol aad u farax badan, waana lamaano. Parag iyo Sisi ayada oo jirta da'da farqi ahaan u dhaxayso in ay tahay 33 sano, haddana maysan u diidin in ay isjeclaadaan ayna isguursadaan. Labadan ruux ayaa aad u jecel xirfadda ka shaqaynta xayawaanaadka gurguurta tababarkooda. Waxa ayna ku wada kulmeen beer lagu xanaaneeyo xayawaanaadka gurguurta. Parag ayaa da ahaan jira 67 sano, halka Sisi ay jirto 21 sano. Waxaa dhex maray jacayl xad dhaaf ah, midba midka kale aad ayuu u jeclaaday. Muddo 2 sano ay wada socdeen, wada shaqaynayeen, waxaa u suurta gashay ugu dambeyntii in ay isguursadaan. Haddana waxay ku nool yihiin nolol aad u farxad badan. Amanda Tiig iyo ninkeeda Riyada. Gabartan Ireland ka soo jeeda ayaa ka soo muuqatay telefishin laga leeyahay dalkeeda, waxayse sheegtay in ay guursan doonto ninkeeda Riyada. Amanda Tiig waxaa aad u saameeyay filimkii lagu magac daray Donny Beat, kaas oo daawan jirtay xilligii ay yareed. Amanda Tiig ayaa aad u jecel ninkeeda Riyada, kaasoo muuqaalkiisu u eg boqortooyadii hore kuwa ka soo haray. Amanda ayaa tiri, waa uu ii imaadaa xilligii aan jiifto, weliba aniga oo dul saaran sariirtayda. Sidoo kale intaa waxa ay ku dartay in ay aad u jeceshahay, asna uu aad u jecel yahay. Amanda Tiig ayaa xafladda guurkeeda dhigatay. Sidoo kale waxaa halkaa ka soo qayb galay dad aad u tiro badan, weliba ayada oo wadata sawirka filimka aktarka uu ka yahay Donny Beat, maadaama ninka uu xoogaa shabaha ninka Riyada ugu imaado, waana arrinta la yaab ku noqotay dunida. Halkaa warbixinta kala socotid waa Somali Media Action qaybteeda Alcaalam, waana borograam soo gala habeen kasta oo Jimco laga soo deeyo janalka Somali Media Action. Inaad nagu soo biirto waxa ay noo tahay dhiirigelin aad u fiican daawade. Subscribe-ka iyo like-tana waxay noo horumarinaysaa janalka. Mahadsanidin.